aqliyan bay logic baynu ku wada hadlaynaa miyiga markaad tagtaan ama miyiga markaad u fiirsataan reer kasta gurigiisa waxa ku dhinac taala maxay xerada maxaa loo sameeyay xoolo in lagu xereeyo macageela la xereeya soo maaha limaada xoolo loo xereynay si bahala looga ilaaliyo neefka xerada diida ee marka sada xerada ka firdhada ma laga hadhayo ma la deynaya faham markaa qodob nahnu rijaal waraabiyal baamano waraabiyal soo garan miisaan anu waraabiyal baam waxaanu doonaynaa waa maxay waa idinka jirkiin idinka xataa idin doonay ma shakhsiyadiina doonayno jirkiinaanu doonayno markasta oo aad naga xirootaan oo nagala dhuumataan oo naga xijaabataan sida xoolaha ariga xerada ku xiraysan uga badbaadiya bahalka dibadda ayaad nooga badbaadaysan markaad banaanka nagu soo baxdaan ama suuqa nagu soo baxdaan rumaan idin sheegaya waxba islaam iyo waxba yinaan ku marteen dadku miyaan islaamay inanka intii soo qawiso dunida soo wadhaa marka la qabsado leena waxan way dara ama mid qashqashaado miyaan islaam laahayn miyaan ilaahay laga baqaynay la soo fadhiisataan rumaan idin sheegaya inagoo islaam baad arki doontaan haddii aad fasahaadaan idinku iyadoo sida dumarka gaalada meesha transportation iyo tareenka iyo gaariga la idinku qashqashaadayo oo iskuulka la idinku qashqashaadayo oo jaamacadda la idinku qashqashaadayo dhakhtarka kabeesha ka watiine kabeesha keedina diiwirsan la idinku qashqashaadayo limaada laana wuxuu doonayay banaanka u soo dhigtay maxay nimanku sidaas oo dhan quruxda dumarka ugu jecel yihiin su'aal muhiim ah maaha labadii ugu horeeyay adduunka isdilayay haabil iyo qabil maxay isku dileen inaan qurux badan bay isku dileen waa labadii nin ugu horeeyay adduunka ilaahay ba ku abuuray aadan dabadiyo waadan dhalay laba hablood bay la kala dhasheen waa la isu weydaariyay waxay dhaadnatan gursaadna tan mid baa show inantii isaga la uurka ahayd ay isku mataansanaayeen baa yar qurux badnayd tii buu tan ilama yar qurux badnaan iyo tan ila dhaltay baan gursanaya war ilaahay sidan muu oran walaalkii muxuu dilay marka gabadh qurux badan inuu gursaday daraadi hadhow intu miskiin halka soo farso kon yareega dumarka quruxa ku raacina labadii ugu horeeyay isku dilay maxaan ku raacnaa anaga wax kale ma garaacna war ma garatan inta labadii nin ee ugu horeeyay ee adduunka isdiray waxa isku dileen waa qurux dumar yaani jirka dumarku anaga ahmiyadu noo leeyahay haddii ka banaanka naloo soo dhigo dayn mayno ama khamiisanu sidan ama shaari surwaal sidan dayn mayno marka inoo qariyo walaal ma garatan waay qodobka ku xiga marka walaalkaas walaal ma lihidin hadduu ku yimaado ku yiraahdo walaal inan baan doonayaa inaan guursaday bal inan ii soo baadh inan nacooda soo baadh inantii tiktok caanka ka ahayd ee waxaan ku halka ka jaas jirtay mise inantii iskuulka ugu waxaan ku shaxshaxda badnayd ee waxaan ku galaaska ku dhex jiri jirtay mise inantii khatar tahay mise inantii suuqa inantii wad raadinaysa inan astroon saaxiibada ku darmiisid inan astroon xijaaban baad ku daraysaa Soomaa ama dabcan adigu inanta saaxiibadaada ugu aragtay in qiimiye maqam ku leedahay oo astroon xijaaban laakiin oo hablo yar wanaagsan eedatay oo eedatay inay soo saaraysa way sidaas lamida nin kasto caawa golaha fadhiyo iyo xataa ku halkan xawaagta ku cabiyo dibadina markaad u tagto hadii aad ku taado walaal ila tali laba tal ku siinay xijaab nin kasta wuxuu ku oranayaa xijaab kow ragana iska urur ha ku milmin rag labada tala nin kasto adduunka jooga ku siinay ninku oranaya isqaab waliga arkimis ninku oranaya banaankiisa soo dhig arkimis hatta ka doonaya inuu meelaha jirkiina kaga raaxaysto isha kala socda hadal kale qurux badan inaad xorowdaan weeyaan iyo inaad sidan tiraadaan iyo wixii leeyo sharaxay imka ayuu kugu soo gabanaya ogaada marka waxa muhiimka ah waxa weeyaan kullama aad naga qarsoontihiin marka soo aad naga qarsoontihiin waa markasta oo aad qiimi fara badan agteeda ku leedihiin waay sida aad walaasha ugu doori lahayd inanta asturana xijaaban akhlaaqda iyo karaamada leh ayay inan kasta ula doonaysaa walaasha iyaduna inan asturana walaalkeed inan asturana xijaaban intaas miyay isku khalkhash kala saar idinku waay qodobka xiga marka soo digmoon anagu khayaalkan u jecel lahaa markayna halkaas soo marto ay xijaaban tahay ee asturan tahay sidii sharciga ahayd la inoo sheegay waa asturan tahay waa caraysi ay ninka ku caraysanayso ku leedahay nin ragabaan ku arkay yani anagu tafsiirkan ka qaadana badanka hablu waxay jecel yihiin in la fahmo iyago aan waxba si bareer u sheegin habeenka ay intu caraysan tahay afkii buurasana maxaa ku dhacay muujiye laakiin cabaad marka la wado marka dambe maxay oranaysaa waxa saa dhacay ma jecel inay markiiba hadalka sheegto yani dumarku waxay jecel yihiin daa'iman nafsad ahaan in la fahmo waxay doonayaan soo maaha marka inaan wada xijaabanay halkaas aan marayso aniga way caraysanaysaa kaninaan maxay leedahay nin ragaan ku arkaa qiimada aniga agteeda ka leedahay raganimadan ku ixtiraamaya yani nin wiilo shahmiye baan ku arkaa marka maxaan doonayaa anuguna maxay waajiba inaan ragnimadeeda qiimeeyo wadaalka inta waxaan ku iska yar ururinaya xaq baan weera beeriya haduu mid isku dayin la hadlin isdiilayna ka limaada ragnimadeedii ku tacadiyay inta waxay ugu leedahay nin raga baan ku arkaa inta ugu nin ragan ku arkaa horteeda lagu shaqshada maxaa dhacay meena musay ragnimadeedii baa lumaysa Soomaa waa inaan u dagaalama marka sidaas si lamid ah inta soo qawisay soo kuskusta halka soo marta iyaduna waxay ugu leedahay aradan intii kale wax iska celisan aan ugu fahmay sida ninka soo fahmaya maxay ku leedahay waa aniguna ruuxii quruxa doonaysa waan hayaa kuwaasi haddaan nin tahay kaaliyo wax iska celi
dabeetana haddii aanu kufsan haddii aanu wax kale ku samayn xataa haddii aanu wax kale oo ceeba ku samaynin waa markuu erey kasii dabeelay mise jabaad tiri inuu wax laga sii dabeel leeyahay dhucday quruxay waxa laga sii dabeel leeyahay aragtay soo ma badna ya weliga arki mise inaan xijaaban oo suruna ereyada laga sii dabeel leeyahay xataa ka maartay bahalka ka inaan khanaafis ka meelahan jooga kasii daba oran maayo laakiin taas soo kuskusta waa laga sii daba oranaya xasan waa hayso eegin waqtiga ma dhow waay qodobka xiga markaas ee muhiimka TikTok barka TikTok aan aad ugu fiirsan inan baa maalmaha hore way soo galaysaa intan kurkeeda qurays ka soo duubasa habeesta doonto laakiin kurkeeda qurays soo duubasa caadiyo way iska ciyaaraysaa mid doonaya inuu jirkeeda ku raaxaysto laakiin sida walaashid la doonayn baa muxuu soo qoraya commentiga naarta kaalmiyadan meesha shafba ku haynin waxay u jigay ruuxna soo dhigaysaa maxay sameynaysaa video ku xiga inantiyo waa ma fahantin waay kan isagu muxuu doonayaa isagu inuu jirkeeda ku raaxaysto doonaya dibadda ka raaxaysto iyada laakiin maxaa hagaya garaadkeeda waxa ka weynaanaya hadalka qofka jaahilka ay ku yiri saddex afar fiiriyo markay saa ku soo duubto markay mid koonayna raskaal midan bari ba lahayn biritoole gigigigo meeshi haddaad u fiirsataan waay haddaad u fiirsataan TikTok hablaha ku jira haddaad u fiirsataan waad ku soo arkaysaan qodobka commentigeena weliba si kale ku garamaysid commentigeena halkan u saaray inaan halkaas soo socoto soo lugayna soo saalkan commenti baa u saarana naarta adigu fadhiyo madax soo dubta midan luga lahayn oo misha soo laafiyo sad arkaysa haddii walaal qof jaahila hadalkiisu uu ku maamulo oo ku hago waxa tahay dulliyad erga ma fahmi kartaa qof jaahilo isaga ma naftiisa war u haynin oo war isu haynin oo doonaya hablo cis iyo karaamiyo sharaf inuu sharafta ka qaado yiraahdo isa soo bandhiga ilaa waxaan markaan kula iimadan shafayni midan barhan way soo bandhigdaan ku daawade walaashi meena taa ku oranaya isbandhig rag wax ku daawadaane ninka walaashi inta aanu quureyn markuu adiga ku quuro ee aad soo tagtad soo duubto mafriid baa timsan cas dulliyad baa tii wali ama fahantan wala waay idinka dabcan ma ku wasan waay المهم marka ogaada hadii hadalka qofka jaahilka uu ku maamulo waxa jaahilida uu ka sii liidata adiguna waxa ugu badan ee hablaha ku kalifayay in saas soo bandhigaana waa maxay qof jaahil wuxuu ku leeyahay qof jaahil oo hadal meel ka yiri wuxuu ku yiri ba hablahana sida u waalay inta ugu badan dhaaf marka